بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo bisha January ay tahay 25 2021 waxaa halkan aan isugu kin yeeray haddaad tihiin bahda warbaahinta guud ahaan warbaahinta qaranka warbaahinta gaarka loo leeyahay dhammaantiin inaan idinla wadaagno macluumaad ku saabsan duulaankii xalayto lagu soo qaaday dalkeena xalayto saqdii dhexe ciidamo ka tirsan dowladda Kenya Defence Force iyo jabhaddii fallaagada ahayd ee baryahanba ay hoosta ku haysatay ee ay taakuleysay ee ay quudinaysay oo wada socda ayaa xuduudda ka soo tallaabay bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee Beled Xaawo oo ka tirsan gobolka Gedo duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Beled Xaawo iyo gobolka Gedo taas oo ku noqonaysa dhabar jab iyo qaran jab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyay ugu dambeyn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga adkaaday oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda waan jeclaa inaan halkan ku soo bandhigno jabka gaaray iyo maxaabiista la qabtay oo ku dhow 100 maxbuus oo dagaal la qabtay laakiin wiilasha la soo adeejiyo wiilashayadii ee qoryaha loo soo dhiibay aan dhacaynin waliba ilaa qori dhacayee oo ah wiilashayadii dhaqanka Soomaaliyeed diinta Islaamka xeerarka caalamiga gaar ahaan Geneva Convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka intuba waxay noo diidayaan in aanu halkan ku qaybino sawirro laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego in laga qabtay jabhaddii fallaagada ahayd 100 in ku dhow khasaaro nafeedna uu soo gaaray sida loo jabiyay baan rabaa in yar inaan idinka brief gareeyo ama idinka tilmaamo kow horta xoogga dalka Soomaaliyeed Somali National Army ciidamadeenu way diyaarsanaayeen mar walba waxay u diyaarsanaayeen weerar kasta oo kaga yimaada jaha kasta diyaar garowgaasi wuxuu baajiyay ku talagal iyo qorshe ay ka wada shaqeynayeen cadowgiyo cadow kalkaalku muddo dheer waxa kale oo nimanka jabiyay shacabka Soomaaliyeed oo naf iyo maal isla barbar taagay ciidankooda xoogga dalka oo u hiiliyay cidda shacabku raaco ayaan baanan bar walba guushalay tan saddexaad ee araxda ka jabisay nimanka waxay ahayd fallaagada wiilasha la soo qalday ee lagu rabay in lagu ababiyo mucaaradnimada iyo qarandiidnimada oo aan niyad u haynin waxa loo dhigayo iyo waxa loo sheegayo iyo waxa lagu dagaalgelinayo waa ogeydeen maalmahanba iyo usbuucyadanba way soo dhiibayeen saraakiishooda iyo wiilashuba way iskaga imanayeen waxba laga yaabaa qolays lahayd maruna magaalada tagteen in iyaguna u haysteen ciidan u dagaalamaya sidii ay wiilashii isu soo dhiibeen morally may haynin ay ku dagaalamaan moral la'aantaasina iyo niyad la'aantaasina waxay keentay in ay jabaan oo ciidanka aan niyad haynin ma guulaysto kumay qanacsanayn dalkaaga ku duul hooyada ku duul walaasha ku duul gurigaaga ku duul kumay qanacsanayn sababtaana way u jabeen qasaaro ba'an ayaa loo geystay fallaagada sidaan hore u sheegay waana ciidan badan baa laga qabtay
iyagu khasaare noocay geysteen sidii caadada u ahayd marka qofka fallaagaahi wuu ogyahay inaanu ciidanka la dagaalami karin waxay abbaareen shacabkii iyo ganacsigii waxay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal waa naqaanaa fallaago ma haysato madaafiic iyo hoobiyeyaal waxaa caddaana oo ay muujinaysaa in dowladda dabada kaga soo jireen oo ay u soo dhiibeen madaafiicda iyo hoobiyeyaasha ay ku weerareen guryahoodii iyo hooyooyinkoodii iyo walaaladooda hal qoys oo keliya oo Soomaaliyeed oo reer beled xaawo ah oo la garanayo ayaa 5 carruur ah iyo hooyadood laga wada dilay which is a very very sad aad u qalbi jaba waanu tacsiideynaya qoyska iyo qoysaska kale ay nimankaasi dhibaateeyeen waxay kaloo si xun u weerareen goobaha ganacsiga tusaale ahaan ilaa markii laga adkaaday waxay ku dhuumanayeen oo difaac ka dhigteen dabaqa Hormuud ee beled xaawo ee caanka ah sababta ay Hormuud gabaadka uga dhiganayaan waa maxay waa barnaamijkii dawladda Kenya ee ahaa ganacsi la dagaalanka waliba khaasahan shirkadaheena waaweyn ee Hormuud iyo Somton ay in badan kula dagaalamayeen in Hormuud la burburiyo maaha wax ka yimi aqliga wiilasha waxay doonayeen in lagu dagaalamo oo ay shirkadu burburto oo aanay shaqaynin ayay doonayeen waase laga guuleystay waxaan rabaa inaan baaq u diro nabadiidka ilaa shalay waxaa ogeydeen oo iyadu dawladuna ay fashilisay hub culus oo fara badan oo la rabay in dalka la soo geliyo sidaanu saakaba warbixinta ku soo saaray waxaa soo dhamay waxay muujinayaan Soomaaliya is under attack Soomaaliya in lagu soo duulay ayay muujinaysaa laakiin ciidamadeena shacabkeena iyo dawladdeena waxay heegan u yihiin inay ka hortagaan waxaan baa qodarayaa wiilasha la soo qalday inta ka hadhay ee xuduudda dib uga talowday inay ku soo noqdaan ciidoodii calankoodii dawladdoodii iyo guryahoodii diidaanna inay fawdo sameeyaan oo ay dalkooda khalkhal galiyaan waa mahadsantihiin